sanadkan wuu sii dhamaanayaa oo waxa haray kaliya 5 bilood. Su'aashu waxay tahay ma jeceshahay inuu kugu dhamaado sida aad hadda tahay mise waxaad doonaysaa in aad samaysid isbedel nololeed. Halkan waxaan kugu sheegi doonaa insha Allah tacaala sida aad 5 bil ee soo socota uga dhigi karto kuwa bedela noloshaada. Waxaan kula wadaagi doonaa talooyin cadcad oo aad isla maanta ku dhaqmi kartid ayaan insha Allah tacaala muuqaalkan kugula wadaagayaa. Haddaad nagu cusub tahay saaxiib soo dhawow. waxaan ahay macallin cigaal qoraa tababaran nololeed YouTube-kan waxaan inta badan kusoo gudbiyaa horumarinta shakhsiga. Maxay muhiim u tahay in hadda la dhaqaaqo oo tallaabo la qaado? Waxaa jirta oranaysa haddii aad doonaysid in aad gaartid meel aadan weligaa gaarin waa in aad noqotaa qof aadan weligaa noqon. Badanaa dadku waxay sugaan in sanadka cusub ay hadaf degsadaan, laakiin sirta guusha waxay tahay in aan hadda bilowno. hadda inaan ku xisaabtano 5 bilood ee sanadka ka dhiman. xitaa haddii waqtigu yar yahay 5 bilood waa waqti kugu filan in aad ku gaadho horumar weyn. xitaa aad bilaabi karto wax cusub oo sii socon doona ilaa sanadaha soo socda. waxaan rabaa insha Allah tacaala inaan qodobo badan kula wadaago. qodobka koowaad wuxuu noqonayaa dib u eeg yoolalkaaga. ku bilow inaad dib u eegtid yoolalkii aad sanadkii hore degsatay ama sanadkan degsatay bilowgiisii. kala saar waxa aad horumar ka samaysay iyo kuwa aad dayacday oo wali aadan waxba ka qaban. u kala qaybi howlaha ku hor yaala oo aad inaa sanadkii hore aad qortay howlo la fulin karo inta sanad ka dhiman iyo kuwa aan la fulin karin. qor 3 hadaf oo muhiim ah oo aad rabto inaad dhamaystirto inta sanadka ka dhiman. qodobka labaad aan kula wadaagayo waxa weeye akhiray in aad barato xirfad cusub. xirfadaha cusub waxay kuu furi doonaan fursado cusub. tusaale inaad baratid luqad cusub ama barnaamij computer, xirfad ganacsi, xirfad shaqo farsamo inaad baratid. sharax sida 5 bil ee kugu filan tahay haddii aad si fiican u barato heer asaasi ah. waxaa laga yaabaa in aad 30 daqiiqo maalin kasta geliso xirfad cusub oo aad is leedahay ma ahan waqti tiro badan, laakiin marka sanadku dhamaado waxaad yeelan doontaa xirfad aad ku kasban karto ama aad ku horumarin karto shaqadaada iyo dhaqaalahaaga. qodobka 3 hagaaji caafimaadkaaga. caafimaadkaaga wanaagsan waa asaaska horumarkaaga. 5 bil kugu filan inaad dhisto caadooyin caafimaad, socod maalinle ah, cunto caafimaad leh, hurdo kugu filan. ka waran sida isbedel yar uu u keeni karo natiijo weyn marka la isku dardaro waqti dheer kadib. tusaale in aad 5 bil soo socota aad maalin walba ama habeen walba xilli hore seexatid waa mid ka dhigaysa markii la isku dardaro qof xoog leh oo caafimaad fiican. qodobka 4 aan rabaa inaan kula wadaago wuxuu noqonayaa maaree maaliyadaada. dib u eeg halka lacagtaada ku baxdo. yaree qarashaadka aan muhiimka ahayn. bilow kayd xitaa haddii uu yar yahay. tusaale qof walba wuxuu ku bixiyaa $1 ama $2 maalin walba wax aan muhiim ahayn, laakiin marka la isku daro 150 maalmood oo ah 5 bilood ee soo socota waxay noqonaysaa lacagtaasi lacag waaweyn. qodobka 5 waxa uu noqonayaa dhiso shabakad dad wanaagsan ah. yacni noloshaada ku xeer dad wanaagsan. 5 bil waa waqti aad kula xiriiri karto dad cusub oo saameyn leh. ka qaybgal kulamo iyo seminaaro aqoon kororsi ah. la saaxiib dadka hal abuurka leh kana fogow kuwa niyad jabsan. rukumo oo la soco baraha bulshada kuwooda faa'iido ku leh. qodobka 6 wuxuu noqonayaa samee mashruuc yar. tan waxay noqon kartaa ganacsi yar, inaad book qortid, YouTube inaad furatid, ama inaad dukaan yar xitaa iska furatid. 5 bil waa kugu filan tahay inaad ku bilowdo oo aad ku aragto horumar muuqda. guntii iyo gabagabadii sanadkan weli ma dhammaan. waxaad haysataa 150 maalmood oo nadiif ah si aad noloshaada u bedesho. ha lumin hal maalin oo ka mid ah. qor 3 tallaabo ee ugu horeeya ee aad ku dhaqaaqaysid hadda. waxaan rabaa in marka sanadku dhamaado aad dib u eegto oo aad tiraahdo sanadkan shaqada ugu badan waxaan qabtay 5 bil ee u dambeysay kadib markii aan daawaday muuqaalkii macallin cigaal. haddii aad jeceshahay tallaabooyinkan ku dhufo subscribe oo la wadaag qof aad rabto in uu guulo xaqiijiyo sanadkan. kulanti dambe oo xiiso leh. bye bye.